السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلي جوجان بومد الصوماليات waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka shaqaaliya baan u salaamayaa dadkii muqdisho ku waxyeeloobayna taasimaan u diraya inta ka bacdi waxaan leeyahay nimayahow ilaahay horta waxa leeyahay wixii dhintay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo wixii dhaawacmayna ilaahay ha boogadhayo waxaan leeyahay meelaynu joognaba Soomaaliyeed marka hore waa mid waana walaalo waana dad islaamnimadu waa shaqaaliya waxaan taagan iyo dhibtan mar walba socota iyo aflagaadadan iyo caydan in la Israa'iil galiyo oo la baadi doono wixii hore dhacay inta wax kale la sii raadinayo ayaa fiican wixii hore ina gaadhay waa inaynu wax hadal badan waxa ma taro waan soo gaabinay yaro gaamaan idin oranaya meel aad joogtaanba horta in la baadi doono war dhibtan xaggay naga timi xaggay wax naga soo raaceen ayaa wanaagsan waxaan leeyahay umadu meel joogtaba ha u noqoto ilaahay ha loona toobad celiyo hana qofka kale ku xumee wax ma tarto laakiin si hal baadi doono qof wax ku wanaagsanaanayo marka aad dib geysato ee aad dibtii cidii aad u geysatay ka raali geliso raali gelintii hadii waxay noqotaa hadii inta la baadi doono raali geliyo la daweeyaa baa loo baahan yahay dhibtan meesha ka dhacday haweenan magaalooyinka midland dadka reer Somaliland shaqaale baan u Soomaaliya meel joogaanba waxaan leeyahay walaalaynu nahay umadu waa walaalo meel joogto horta Soomaaliyeed reer Somaliland waxa ay had iyo jeeraali ka xanaaqsan yihiin ama ay diidan yihiin marka la yiraahdo markii hore dhib baa ku dhacday oo diyaaradii Hargeysa ka kacday baa weerartay waxaan la kulmay anigu ninka isaga kulmisahan loo xiray lix aruura ayuu dhalay oo shan kamid ah guriga lagu yibo shantii kamid ahaa iyo gabadhiisiiba waa la qaaday oo waxa la geeyay jeel baa la geeyay dabeedna dadkii lagu xiray birjeexe xabaalaha malkada dul lagu daray ayaa shantii baa laga dhigay inay yaran way ka maanay waqtigii dambe ee dawladda dhacday baa iyo xamar ka soo baxay jeelka la yiraahdo ayaan ka soo baxay buu yiri meesha la yiraahdo jeel ku yaala Muqdisho dabeetana ninkii imika hadii aad la soo hadal qaado wax dambe mu guursan inantii baan wax aruura u nool hadii nin gaboobay uu ahaayo aruurtiisa reerkiisii dhamaan marka la yiraahdo qof kama noola bal maxaad u maleynaysaa waxa soo midhan baa wadanka ka dhacay hadii la yiraahdo ku iimayl maanta raacayna muxuu sameeynaya waxa weeyaan dadka mas'uuliyiinta ama madaxda waxaan leeyahay hal sheer gareeyo hal gaarsiiyo warkayga wardo qor facli baa meel si laga raacay mooga hal isku noqdo hal yiraahdo war ilaahay inuu toobad celin oo dawlad baan anaan xaqan wax u goosanayna waan la ictiraafsan yahay anaguna waan goosan waxaan waxba tari maayaan oo horta maxaynu dadkan ku daweynaa maxaynu ku dawownaa maxaynu isugu nimaadnaa sidee baynu wax u raadsanaa ilaa Soomaali baynu wadana hawla safkarnayaayo midna af kale ku hadli maaye hal la baadi doono taa dabeedna dawada hal la raadiyo dabeedna culimada hal loo yeedho dabeedna hal la isu duceeyo dabeetana qof waliba wuxuu doonayaa anu waxaan aaminsanahay markii ugu horeysay hadii yiraahdaan Soomaaliland waan ictiraafno waan aqoonsanayba inaan 5 sanadood ka maqnaadeen waayo way iska dad jecel yihiin oo markay ogaadaan waxay oran lahaayeen bagoonka ku xidhnaan mayna waan u tagaynaaba marka laakiin say yiraahdaan waxa liyo waxaan idin ogol lahay ma jirto dee ku jiqsi weeye iyagina de marka qofkii marka lagu raawo waxna ku horena waan ku dilay maantana waan ku haystaa imikana aan ku dilaaya haddana madaxan kaaga taagan marka la yiraahdo de qofkii ficil baa qaadaya marka ficilkan ku iyo aburiskan bal inay idinka laftiina idin fiican tahay iyo in kale bal dub isugu noqdo waxa tiraadaan war waxa maxaynu ka heleynaa sidee baynu wax uga heleynaa dhibta noocaas sidee bay u hagaagaysaa sidee baynu dadkan u daweyn karaynaa bal horta hal is weydiiyo waxaan leeyahay hadii hadalka xumi waxa ma taro kelmad xun oo la isku yiraahdaana waxa ma tarto ku jiqsiina waxa ma tarto si qaaliya ayaan u salaamayaa madaxweynahayga Muuse Biixi Cabdi umada reer Somaliland si qaaliya ayaan u salaamayaa ilaahay waxaan ka baryaa reer Somaliland waxaan leeyahay weeraha dambiga waa inaan uga radeynaa waa inaan waleyliyo watiin uga wareegnaa wardiga iyo salaadaba waa inaan wagac ka siinaa
wuxuu weynahay soo rogaa la isku waafaqay nin waliba waraaqdu sitay wax ugu yaaliin ha warwarin Somaliland ayaa la heshinaysaa waqtigii walaaliyo Somaliland ay heshi ku diiday waqtigii warmaha ku listay xidhay wanaagaaga waqtigii sidii weerihii kugu wareegaystay warmar haddii wali ku dhasho loo walqalay maanta warsaw nafsiga weeraya waa dhow iman maayo hawrul Somaliland ayaa la heshinaynaa tixdaana intaasaan ku soo gaaminayaa reer Soomaaliya waxaan leeyahay bal isku noqdo sida wax idinku hagaagaan qarax una ku jirinee bal dub isku noqdo waxbay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.